Jaraal Saciid Caawil Jaamac Caare ayaa maanta cutubkii ugu horeeyay ciidamadiisa jabhadda Dulmidiid oo muddo badan duurka ku jiray waxa uu ku wareejiyay guddiga dhexdhexaadinta jabhadda iyo xukuumadda Soomaaliland waxaana munaasabadda wareejinta ciidankani ugu horeyntiiba ka hadlay hogaamiyaha jabhadda Dulmidiid Korneel Saciid Caawil Jaamac Caare. maanta waxaan ku wareejinayaa ciidankii jabhaddii Dulmidiid oo fadhiya si dhaba oo mugle ayaan idinku wareejinaya iyagoo saraakiishooda wata aqoonyahankooda wata laba fadhi waxa jiraan xabta waxa taliye guudsayaalka Yaasiin Xuseen Xasan gaashaan la dhexe mutaystay iyo Cumar Jimcaale Dirir oo isna gaashaan la dhexe mutaysto meesha la yiraahdo shumux iyo cilaamad waxa jira urur bohol joogay wuxuu soo gelayaa caawa meesha la yiraahdo Alban isagana indhihiina ku arki doontaan haddii alla yiraahdo tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry iyo 100 technical sar 900 intaasaan maanta idinku wareejinayaa alright taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani waxaan leeyahay cadaalad samee adiga dalkana waxaan leeyahay qolada waxba ma tarto annaga dagaalkii naga diideen annaga islahayn bad weeye dagaalkii waa nagu kaliyeen u qayb dadka dhankooda waxa halkaasi hadalada iska daba qaatay salaadiin iyo xildhibaano waxaana hadaladoodii kamid ahaa maasan tahay nin weyn baa tahay maanta ciidanka aad nagu wareejisay ee jabhadda Dulmidiid waanu ka gudoonay si mugle iyo miisaan baanu kaaga gudoonay adigana waxaanu ku ilaahay kaaga baryaynaa nabadda aad nala qabatay ee aanu ku soo tacabnay waxa weeye in ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro ciidanka aad nagu wareejisay ee aad nagala dardaarantay iyo saraakiishooda iyo waxa weeye dhowrka meelood kala fadhiya dayici mayno waanu ka soo ballanay dawladda waxa weeye ciidankaasu jananaari si adiga ay kugu weyn yihiin iyo noogu weyn yihiin qofka soo nabadda ka shaqeeyena waa u mahadnaqaynaa waana u hambalyeynaa waxaan leenahaynaa qabiil meel uu ku dhamaadaa ma jiro meel lagaga gayoodaa ma jiro haddaase qabiil wax ku qaybi wax ku hagaagaya ma jira qarannimada ayna wada deeqda oo aan maaragtay nin kale aanu ka xigsanaynin oo aan la iskala xigsanin oo nin waliba uu wuxuu ku leeyahay oo ka qaato taana waxaan leeyahay inamada iyo qof waliba ku qanco qarankaas ayna deeqaya wanaagga ayna deeqaya wada jirka ayna deeqaya waxayna deeqaya hasha maandeeq ayayna deeqaysay kalsooni aan ku qabno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidankii aanu ugu tagnay casha iyo buuraha iyo maxay ahayd godadka iyo xeebaha ee soo baxay ee ogolaaday nabadgelyada wadankooda inay nabadgelyo ka dhaliyaan inay nabadda dadka la walaaloobaan inay soo noqdaan ciidankaas aad baan ugu mahadnaqayaa Soomaaliland waanu qaadanay nabaddii idina cadaalad wax ku qaybiyo waxaanu mahadnaqayaa taliyaha Caare iyo jabhadda oo nabaddii aanu sidnay si wanaagsan nooga gudoomay waqtiina Korneel Caare haddii qabiil la sheego reerka ugu ballaaran ayuu ka dhashay wuxuu nabadda u qaatay markaan 6 bilood ka dulkici weynay ayuu Caare nabaddii qaatay ugu dambeyntiina munaasabadani oo ahayd mid jawid nabadgelyo iyo basal uu ka muuqday waxa hadalada iska daba qaatay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta jabhadda Korneel Caare iyo xukuumadda Soomaaliland Suldaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Awgood Janan Caare iyo ciidankan halka taagan iyo ciidamada kale fadhiyada kale jooga oo maanta inuu ku wareejiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isaga iyo ciidankaba mahad ballaaran baan u jeedinaya wada ciidankan waxa sababay oo markii hore bixitaankiisa keenay wax tabasha keentay ciidanku saas ugu baxay waxaan rajaynayaa wax tabasho dambe inaan ka iman xagga xukuumadda oo wax tabashadii meesha ka baxdo waxaan leeyahay wax tabasho yaani soo noqon tii hore ayaynu imika ya Allah ya Kariim ku soo baacinay ciidankana waxaan leeyahay ciidankan waxaan rajaynayaa ciidanka qaranka ka mid yihiin laga bilaabo maanta iyo shalay
ciidanka qaranka ka mid tihiin deganaansho ayaa inoo ballana iyo inaadin dad samir la noqotaan annaguna haddii janankii uu nagu wareejay isagiina uu noqday madax dhaqameed kama hadhayno ciidanka ilaa iyo halka ugu dambaysa wadla soconaynaa waxaan u mahadnaqayaa Janaal Caare iyo ciidankiisa iyo deegaanka ciidanku deganaa ee uu shalayta ka soo guuray iyo ragga maanta soo diyaar garoobay ee in qarannimo shalay soo diyaar garoobay ee in qarannimada iyo ciidanka qaranka miisaanka uu ku leeyahay dawladdeena iyo dalkeenna fahmay ee u soo diyaar garoobay maanta inay ciidanka qaranka ka mid noqdaan aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadnaqayaa waayeelkii raggaa soo diyaar gareeyey raggii nabadgelyada ku ilaalinayay waayeelka ahaa iyagana aad baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay waxaa qabateen dadkuna wuu idin og yahay ilaahayna wuu idinkaa jarsiinaya Jananaare waa kaa guddoonay ciidanka 900 ee aad horraantiisii oo taliska maanta nagu wareejisay fadhi infantry iyo fadhi technical ah saddexda ciidan ee kale ee aad tilmaantayna mid walba haddii ilaahay nafta inoo daayo halkiisaan ugu tagi doonaa kula wareegi doonaa iyagoo isku dhana dawladdan ku wareejin doonaa haddii ilaahay nafta inoo daayo ciidanka waxaan leeyahay fadhi waxba la iskuma siiyo nin waliba wuxuu la soo baxaa buu leeyahay waxba isu qarin mayno reerkeedna waxaa la yidhahdaa ciidanka ma ogolaada oo ku samra عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالمي جاي هوريال تي في عيري قابو